madaxweynaha shanaad ee jamhuuriyadda Kenya William Samoei Arap Ruto oo ahaa bahaysta 6 caruur ah oo 10 sano dalkan ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka ayaa loo doortay inuu wadanka hogaamiyo 5 sano ee soo socota. Ruto ayaa ku dhashay deegaanka Kamagudo ee ismaamulka Uasin Gishu waxaana waxbarashada dugsiga hoose ka galay deegaankiisa isagoona dugsiga sare ku qaatay countiga Nandi wuxuuna kadib jaamacadda shahaadada koowaad uu ka bartay cilmiga botany and zoology ee jaamacadda Nairobi kadibna cilmiga beeraha ayuu sii waday ilaa sanadkii 2018 uu ka qaatay shahaadada PhD-da. Ruto ayaa ahaa arday firfircoon oo hadba halka uu wax ka baranaya ka mid noqon jiray hoggaanka sare ee ardada wuxuuna markii ugu horeysay siyaasadda ku soo biiray doorashadii Kenya ka dhacday sanadkii 1997 marka uu ku guuleystay inuu ka mid noqdo xildhibaanada baarlamaanka Kenya. intaa wixii ka dambeysana wuxuu xubin la isku halayn karo ka noqday xisbigii talada hayay ee KANU oo uu hogaaminayay madaxweynihii xilligaasi Daniel Arap Moi waxa uuna u magacaabay wasiirka arrimaha gudaha uu hayay tan iyo sanadkii 2002 mar kale ayuu la shaqeeyay madaxweynihii xigay ee Mwai Kibaki oo uu noqday wasiirka beeraha 2008 ilaa 2007 kadibna waxa uu noqday wasiirka tacliinta oo muddo 10 bilood ah oo halka ka shaqeynayay. William Samoei Ruto oo siyaasadda si weyn uga dhex muuqday ayaa doorashadii ay rabshaduhu ka dhasheen ee sanadkii 2007 waxa uu ka mid noqday eedeysanayaashii looga wacay maxkamadda dambiyada caalamiga ee ICC wuxuuna jiitanka maxkamaddu soo gaaray ilaa sanadkii 2016 oo isaga iyo ninka uu ku-xigeen ku ahaa Uhuru Kenyatta si wada jir ah maxkamadeyntu ugu socotay inkasta oo markii dambe wax dambi ah lagu waayay. marnaba shumiciisu muudamin Ruto tan iyo sanadkii 1997 balse waxa uu xidigaha Kenya hogaamiyay ku biiray markii uu xulafada la sameystay Uhuru Kenyatta oo ay kaga adkaadeen doorashadii dhacday sanadkii 2013 Raila Odinga waxayna xukunka joogeen ilaa sanadkan 2022 waxa uuna xukunka kala wareegi doonaa Uhuru Kenyatta oo uu ku-xigeen u ahaa ayna wajiga kala dadbi jireen ilaa sanadkii 2018 xilliga oo madaxweynaha xilka ka sii degay Uhuru Kenyatta oo heshiiskii gacan gariska ee caan ka noqday oo la saxiixday hogaamiyaha mucaaradka Raila Amolo Odinga. wixii xilliga ka dambeeyana waxaa xumaaday xiriirka Uhuru iyo William Ruto. ugu dambeyntii maanta oo taariikhdu ku beegan tahay 15 bisha Agoosto ayaa William Ruto waxa uu ku guuleystay xilka madaxweynenimo ee Jamhuuriyadda Kenya. Saciid Qarafaan, Universal TV, Nairobi.